marka u horeysa shirka maanta aan u fadhino mudanayaal iyo marwooyin waa shir sanadle ah oo qaanuuni ah kuna qotoma xeerka nidaamka garsoorka qodobkiisa soddonaad ee soo baxay 12 Juun 1962 iyo qodobka 32 ee xeerka nidaamka garsoorka ee soo baxay asna 1974. shir sanadeedka garsoorku waa shir mudanayaal iyo marwooyin lagu lafaguro laguna gorfeeyo waxyaabihii garsoorka u qabsoomay iyo caqabadihii ka hor yimid sanadkii tagay. si kooban haddaan u sheego ujeedooyinka shirkan waxa weeye in la qiimeeyo wixii garsoorka u qabsoomay sanadkii tagay iyadoo guulihii la gaaray sanadkii tagay la xoojinayo lana soo bandhigayo caqabadaha jira iyo sidii xal waara loogu heli lahaa. waxaa ka mid ah ujeedooyinkiisa dejinta iyo falanqaynta qorshayaasha sanadka cusub ee garsoorka Soomaaliya si loo taabageliyo horumar baaxad weyn oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood wada mahadiyaan. waxaa ka mid ah ujeedooyinkiisa xoojinta madaxbannaanida garsoorka, ilaalinta iyo adkeynta sareynta sharciga, dhowridda xuquuqda aadanaha iyo xoojinta wada shaqeynta garsoorka Soomaaliya oo dhan oo maanta shirkan ay wada joogaan bahda garsoorka Soomaaliya ama ha noqdo heer federaal ama ha noqdo heer dowlad goboleed. shirkan aan maanta u fadhino mudanayaal iyo marwooyin waa shirkii labaad ee u qabsooma muddo 30 sanadood ku dhow kaas oo hal ku dhig looga dhigay sida u jeedaan garsoor tayo leh. waxaan shaki ku jirin mudanayaal iyo marwooyin in garsoor tayo leh hufan madax bannaan uu yahay waxa kaliya ee taabagelin kara dowladnimada Soomaaliya ee qof kasta uu raadinayo, xoojin kara ku dhaqanka iyo sareynta xeerarka dalka, xurmeynta xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka xafiisyada dowladda iyo horumarinta bulsho ee Soomaaliyeed. haddii aan uga gudbo intaas ujeedooyinka shirkan waxaan u gudbayaa guulihii garsoorka Soomaaliya u qabsoomay muddadii la dhaafay sanadkii u dambeeyay 2019. waxaa ka mid ah guulihii la gaaray in la dejiyay siyaasado iyo qorshayaal lagu horumarinayo garsoorka oo ay ku jirto in lagu soo zaa'idiyo garsoorka dhiig cusub iyadoo taas laga arki karo imtixaankii maxkamadda sare ee qaaday ee ay ku tartameen bulshada Soomaaliyeed kaasoo laga xushay 90 qof oo iskugu jira garsoorayaal iyo kaaliyayaal. haddana lagu howlan yahay sidii loo howlgelin lahaa dadkii tartankaas furan ku soo baxay. diyaarinta hanaan xogta lagu ilaaliyo laguna keediyo oo garsoorku yeeshay si loo hagaajiyo maamulidda dacwooyinka sarena loogu qaado adeegyada uu bixiyo garsoorka. waxaana nidaamkan la gaarsiiyey qaybo ka mid ah bahda cadaaladda ee garsoorka Soomaaliya ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. la dagaalanka musuqa iyo kordhinta isla xisaabtanka garsoorka dhexdiisa iyadoo la saaray guddiyo hawshaas dabagala kana shaqeeya sanadkii tagay. la dagaalanka dambiyada qorsheysan iyo kuwa aan qorsheysnayn oo xafiisyada xeer ilaalinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay waqti badan geliyeen sanadkiina soo dhaafay oo faldambiyada la xiriira tahriibka iyo socdaalka sharci darrada ahi wax fiican laga qabtay. dadejinta dacwadaha soo gala xafiisyada garsoorka Soomaaliya ama ha ahaadaan maxkamado ama ha ahaadaan xeer ilaalin iyadoo la sameeyay hanaan lagu dabageli karo shaqada ka socota garsoorka oo qof kasta oo ka mid ah ama xeer ilaaliye ha noqdo ama garsoore ha noqdo loo qorsheeyay inuu uu helo user u gaar ah kaasoo lagu dabagelayo hawsha iyo mas'uuliyadda uu hayo. tababarida howlwadeenada garsoorka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo sanadkii dhaweeyay garsoorka uu ku guuleystay inuu tababaro dejiyana manhajkii lagu tababari lahaa tababarayaal loogu talagalay in ay garsoorayaasha ka dambeeya ayaga ay tababaraan kuwaasoo iskugu jiray heer federaal iyo heer dowlad goboleed. hagaajinta bilicda dhismayaasha garsoorka taas oo ay ka muuqato mudanayaal iyo marwooyin xafiisyada xeer ilaalinta iyo maxkamadaha kala duwan ee dalka gaar ahaan maxkamadaha
gobolka banaadir abuurista kayd xog oo la isku halayn karo laguna xifdin karo dhammaan xogaha xafiisyada soo gala iyo kuwa ka baxa mideynta xaashida eedda iyo diyaarinta hal qaab oo midaysan taas oo ay tahay inay raacaan dhammaan xafiisyada xeer ilaalinta dalka si waafaqsan qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo xeerarka caalamiga diyaarinta warqadda dhaawac muujinta oo iyadana la qaabeeyay lana waafajiyay shuruucda dalka iyo xeerarka caalamiga ee adduunyada ka shaqeeya waxaa la ansixiyay xeerka anshaxa xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka kadib wada tashiyo fara badan oo la sameeyay waxaa la xoojiyay wada shaqeynta garsoorka ee hay'adaha kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa sanadkii dhaweeyay lagu guuleystay in la sameeyo maktabada u gaar ah xafiisyada xeer ilaalinta iyo maxkamadaha gaar ahaan kuwa maxkamadda sare iyo maxkamadaha gobolka banaadir iyo xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka waxaana qorsheysan in sanadkan soo socda iyo sanadkan gudihiisa uu wada gaaro maktabadaas jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhammaanteed garsoorkeeda waxaa la dhammaystiray axdigii aasaasidda macadka garsoorka Soomaaliyeed iyadoo la dejiyay siyaasadihii macadka tababarka Soomaaliyeed intaas haddaan kaga gudbo guulihii si kooban u dulmaray guulihii la gaaray sanadkii hore waxaan ku xijinayaa caqabadaha haysta garsoorka Soomaaliya ee sanadkii dhaweeyay iyo sanadihii ka horeeyayba garsoorku uu wajahayay caqabada koowaad waxa weeye caqabada miisaaniyadda garsoorku hadda ku shaqeeyo waa mid aad u xadidan oo caqabad ku ah xilgudashadiisa meelaha qaybtoodna maba helaan mushaar qaybtoodna waxay helaan mushaar kooban iyo howl socodsiin taas oo garsoorka Soomaaliya dhammaantiis meel kasta uu joogo uu ka midaysan yahay inuusan haysanin miisaaniyad ku filan maqnaashaha hay'addii iyo golihii mas'uulka ka ahayd horumarinta garsoorka iyo madaxbannaanidiisa mudanayaal iyo marweyn saa ka wareysaan qodobka 109 ee farqadiisa lixaad ee dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya golaha adeega garsoorku wuxuu u idman yahay qorista shaqo ka saarista dalacsiinta iyo anshax marinta garsoorayaasha go'aaminta mushaarkooda iyo howlgabyada dejinta shuruucda shaqo ee garsoorka iyo guud ahaan isla xisaabtanka bahda garsoorka iyaduna waxa weeye golahaas uusan jirinin waajibaadka iyo waxa laga filan karo markasta su'aal baa saarnaanaysa maxaa yeelay dhismaha uu sameeynayo dastuurka Soomaaliya waa wax loo baahan yahay qof kasta Soomaaliyan isha ku hayo amniga garsoorka mudanayaal marweyn garsoorka maadaama uu lafdhabar u yahay soo kabashada iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyo sareynta sharciga cid kasta oo ka soo horjeeda dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya laamaha cadaaladda waxay u arkaan halis iyo cadow wiiqaya awoodooda garsoorkuna wuxuu ku waayay howlwadeeno qiimo badan oo u dambeeyay garsoorihii lagu dilay hoteelka SYL sanadkii hore welina ay socoto hanjabaadyo iyo beegsashada shaqaalaha iyo howlwadeennada garsoorka afar kaabayaasha dhaqaalaha mudanayaal iyo marweyn waajibaadka iyo qorshayaasha baaxadda weyn ee garsoorka lama gaari karo lamana qaban karo haddii uusan helin garsoorku kaabayaal dhaqaale oo kaabayaal ku filan waxaa tusaale cad u ah arrintaas in garsoorka gobolka banaadir marka laga reebo maxkamadda sare iyo dhowr degmo ay dhammaantood ku wada shaqeeyaan hal dhisme aqoonta bahda garsoorka heerka aqooneed iyo xirfadeed iyo howlwadeennada iyo shaqaalaha garsoorka oo aan gaarsiisnayn heerkii aqooneed iyo xirfadeed oo loo baahnaa sababta ay tahay waxaa maqan hay'addii maamuli lahayd hawshaas number 6 fulin la'aanta go'aamada garsoorka inkastoo dadaal weyn la geliyo in la gaaro xukunno waafaqsan sharciga haddana ma wada helaan xukunnadaas fulintii loo baahnaa waxaana mudanayaal marweyn ka wada warheysaan dhammaantiin in ay tahay fulintu dhammaadka iyo dhammaystirka cadaaladda uu qofka muwaadinka raadinayo 7 dib u habeynta xeerarka dalka caqabadaha xeerarka la xiriirsan mudanayaal marweyn waxay soo bilaamatay markii dowladnimada Soomaaliya aan qaadanay
waxaana dowladnimadeenu ay timid iyadoo ay waddanka ka jiraan sharciyo kala duwan sida shareecada islaamka, xeerka iyo nidaamka ingiriiska uu keenay common law-ga, kii talyaaniga oo civilka ah, iyo xeer Soomaaliga oo dhammaantood u baahan in la iswaafajiyo wixii iswaafaqmi kara, taas oo ay sii dheer tahay in xeerarka Soomaaliya aysan helinin dib u eegistii loo baahnaa. xabsiyada dalka mudanayaal marwooyin marka laga reebo xabsiyo cusub oo waddanka loo sameeyey, dhammaantood waxa weeye waa dhismayaal qadiimi ah oo dowladihii hore ee Soomaaliya soo maray ay dhiseen. dhammaantoodna waxay u baahan yihiin dib u habeen, dayactir iyo dhismo cusub in lagu dooro, taasoo ka jawaabi karta waajibaadka ka saaran taliyayaasha xabsiyada maxbuusiinta ay meesha ku hayaan. caqabadaha waxaa ka mid ah isku xirnaan la'aanta hay-adaha kale ee cadaaladda. mudanayaal marwooyin, garsoorku keligiis waa hay-ad aan dhammaystiri karin cadaaladda. xukunnadu way soo saari kartaa, laakiin fulinteeda iyo hawsha la qabanayo waxa la qabanayo waxay ku xiran tahay hay-ado kaleeto sida hay-adda dambi baarista, usluubta iyo dowladaha hoose oo dhammaantood u baahan yahay inay gacan weyn ka geystaan awaamirta uu garsoorku soo saarayo.